koox ka socota Soomaaliya oo ka qayb galaysa koob loogu magac daray dhalinyarada caalamka oo ka socda dalka Norway ayaa u soo baxday rubuc dhamaadka ama semifinalka wana markii ugu horeysay oo koox ka socota Soomaaliya ay ka qayb gasho koobkaasi wariyahayaga Xasan Saciid Xasan Rasto ayaa warkan waxa uu inooga soo diray dalka Norway. koox kubadda cagta ciyaarto dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku tirtimayay magaca qaranimada dalka Soomaaliya ayaa sanadka 2015 waxay ka soo qayb galeen koobka dhalinyarada caalamka ee dalka Norway looga yaqaano Norway Cup. dhalinyaradan oo sida la sheegay laga soo xulay gudaha dalkeena Soomaaliya iyo qaybo kale oo caalamka ayaa waxa ay tartankan oo isreebreeb ahaa kula kulmeen ciyaartooy kale oo ka kala socday dalalka caalamka. ugu dambeyntii ayaa kooxdan dhalinyarada ee qaranka Soomaaliyeed magaciisa ku ciyaarayay ayaa soo gaaray afartii koox ee ugu dambeysay kadib markii ay xulka dalka Brazil ugu awood sheegteen 1-0. طبعا aad baan ugu faraxsanahay inaan aragno dhalinyaro Soomaaliyeed oo tartan kaga qayb galaya tartankan oo ah mid asaasi oo in badan soo jiro caan ku ah dalka Norway markii ugu horeysay koox Soomaali ah dhalinyaro ah daadana ay badiyaan oo heerkan ay soo gaaraan dabcan afartii ugu dambeysay joogtaan tartan ballaaran buu ahaa maanta waxaad ka badiseen kooxda Brazil oo lagu yaqaano caan inay ku yihiin kubadda cagta bal dabcan dareenkiina si guud adoo tababar hadaad iga waranto markuu ugu horeysay ruuxantii dareenkiina waa aad iyo aad baan u faraxsanahay game ka dheelayna waxa ahaa game iska xasaasi ah Brazil waa koox adag laakiin se laftigeena koox sahal ma nahin ciyaartiina waxa ku dhamaatay 1-0 guushina anaga qaadnay mar hadaad Brazil ka badiseen dabcan dareenkiina waa sidee inaad ku guuleysataan koobkan da'dan ruuxantii koobkan hore kama soo qayb galin waa markii ugu horeysay ka soo qayb galno saasataana bulshada waxa noo sheegsan kooxda sanadka hore hadda ka badinay inay qaaday marka waxayna leeyihiin badda kuwan ka badiseen koobka ninkaas kale dhalinyaradan Soomaaliyeed adigu tababaraad u tahay bal hadii aad faahfaahin naga siiso sida aad halkan ku soo gaarteen dalka Norway waa timaadeen martibaad ku tihiin si tartanka aad uga qayb gashaan xageed ka timaadeen xageed ku nooshiin ma dalkii Soomaaliya ma qaybo kale oo caalamka ruuxantii dhalinyarada inta badan waxa ka keenay Soomaaliya ka keenay afar wiil oo ka mid ah waxaan ka keenay wadanka Sweden koox wadanka Sweden ka jirta leeyahay Superstar Somaliska Youth Football ayaa na soo sponsor gareeyay ayaga ka dambeeyna halkan imaano waxaan ku soconaa magaca Soomaaliya inaan meesha caalamka ka surno magaca Soomaalida ku dheelno dhalinyarta Soomaalidana talentiga leeyahay aan soo bandhigno kale waxa ka timaaday 12 kale waxa ka imaan Soomaaliya adigu waxa ka timaaday anigu waxa ka imaaday Soomaaliya waa sida dareenkaagu maanta dareenkayga waa lama soo koobi karo xagee ka timaaday adigu aad kooxdan kaga soo biirtay Soomaaliya magaaladii Burco magaalada waxaan ka mid Hargeysa waxa ka mid tahay kooxda Soomaaliyeed ee ku tartamaysa calanka Soomaaliya adiguna Burcan Kemi koobka kubadda cagta ee lagu tartamo dalkan sanad walba ee loo yaqaano Norway Cup ayaa ah mid soo bilaabmay 1972 waxaana sanad kasta xilligan oo kale lagu qabtaa dalka Norway tartankaas oo u dhaxeeya dhalinyaro da'doodu ay u dhaxayso 10 sano ilaa 19 sano ana markii ugu horeysay koox Soomaaliyeed ay ka soo qayb gasho Xasan Saciid Xasan Raasta Somali National TV Oslo Norway.